runtii dadaalkeeda waxa kale oo wasaaradda awqaafta diinta iyadana oo wasiirka hadda la fadhiyo oo hadda doona si rasmi ah u sheegi doono go'aanka ciidda haddii ilaahay yiraahdo iyadana looga mahad celinayaa in ay bilowga bisha sugideedii iyo dacwadii iyo gabagabadeediiba ay si sharci ah oo wadadii sharci ah u soo martay oo wasiirka oo personal isagoo u taagnaa iyo ragga culimada ah inay si wada sharci soonka lagu sugo saano kaleeto ayaa juhdi badan loo bixiyay meelo badan baa la xiriiray soonka si sharci ah ayaa loo sugay waagii wati shacbaan aan soddonkii aan dhamaystiranay haddana sidoo kaleeto ayaa si loo xaqiijiyo taxarri la sameeyay galada maadaama macluumaad lagu kalsoonaan karo aysan dhicin sida asalka ahayd baqaa'ul asli calaa maa kaana sidii sharcigu uu yahay soonkii socday haddii wax cad oo lagu rafaca aan lahayn sidiisoo baaqi u noqonaya soddonkii la dhamaystirayaa sidaasay wasaaraddu marka hore qaadatay waa weji sharci ahayd haddana markii macluumaadka wasaaraddu sidii bay wasiirka iyo culimmadu qaadku waa noo wada faraayeen waxa weeyaan intaas macluumaad la raadinayay waxaa kusoo aruuray haddana wasaaradda iyo culimmada kusoo aruuray dadkan maqlayseen shahaadaad sugan oo weliba culimo ah oo muhiim oo kamid ah sheekh Abdulrahmaan nala fadhiyo degmada maartay ka arkaysan kay deegaan kay zona kay iyo culimada aad maqlayseen doolow iyo meesha la yiraahdo qoryooli ka arkay oo weliba rag culimo ah oo dad waaweyn dad culimo ah masaajida maamula sidaa daraadeed markii miisaanka sharciga la saaro waxa waaye in shahaadadii sharciga ahaday oo shahaado yani laba qofood oo markhaatiyo caadila ayaa loo shardiyaa weliba bisha soonfurka marka laga hadlaayo iyo guud ahaan shahaadaadka sharcigaaba bisha soonka marka la sugaayo maadaama cibaado ay tahay culimada qaarkood waxay yidhaaheen hal qof oo caadila waa lagu sugi karaa haddii ay hawadu ay bannaan tahay laakiin haddii hawada uu ka jiro maxaan ku yidhaha qumi uu ka jiro lafteeda maaragtay waa lama ictimaadi karo marka cagsigeeda waay haddii qumi uu ka jiro hal qof ictimaadka laakiin haddii ay bannaan tahay waa in laba iyo ka badan la helaa laakiin soonfurka markii laga hadlaayo waxa waaye waa la adkeeyaa in laba qofood maxaa yeele cibaada laga guuraya laba qofood iyo ka badan in la helo oo caadil ah nasiib wanaag waxaan haynaa hadda 6 qofood ayaan haynaa ama 7 qofood 8 qofood la hayaa oo weli la wada sugay shahaadada si sharci ah sida daraaddeed alxamdulillah diin marka loo fiiriyo rasmiyan wasiirka noogu dhawaaqdo laakiin diin ahaan marka loo fiiriyo suumu liru'yatihi wafdiru liru'yatihi ayaan ku taagana shalna aragteenan ku soonnay maantana aragti sharciya oo sugnaatay ayaa lagu furayaa oo lagu ciidayaa marka sidaas daraaddeed xagga sharcan waa soo dhammaystirantay shahaadadaasu wixii oo markaas waajibaadka sharcigan waxaan noo dhigi sheegi doonaa wasiirkeena sheekh nuur maxamed tafadhal maal wasiir هذا هو تعالى بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم مد الصومالية ميل والبيجوكت وحمد السلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته سألوا سعتين وزارة وقفت علماء الدين iyo culimada maqribka marka la afuro kadib waxay taxari halkan u yimaadeen TV-ga qaranka culimada dhan si loo xaqiijiyo in bisha la arkay in kale waxaa la fadhiyay meeshan 2 saacadood oo kaamil ah la fadhiyay ilaa 2 saac bar wixii ka dambeeyay waxna la soo xiriiray ma jirin aniga barteeda Facebook-ga iyo meel walba waxaan ku soo qoray inaanan bisha la arkin markaas ku soo qoray wixii ka dambeeyay dalka meelo badan oo laga arkaa jiro oo nagala soo xiriiray oo baadiyaha ah sida doolo oo kale oo hadda macal Axmed Gaabo iyo Isaaq Cali Isaaq iyo Aadam Macalin Mayowi iyo degmada Qoryoolo sidoo kale ugu yaraan 8 qof oo muslim ah iyo wadaadkan oo soonakay asagana ka arkay oo noo xaqiijiyay marka mar walbana de waxa waaye dadka anaga inaa waxa mas'uuliyad naga saaran tahay ummadda Soomaaliyeed aan mas'uul ugu nahay diinta dalka mas'uul ugu nahay marka mar walba inaa xaqiijino waaye waxaan ku xaqiiqsanana dadka Soomaaliyeed inaa u shaqeeyaan ka soo joogaan marka saas darteed كل عام وأنتم بخير ومدى الصوماليات مالو بيجوا وهم بليا بالشدة بشا شوال عيد الفطر المبارك بري أو سبتي أي نوتة هاي كو مع العيدها أو عيدنا هذا إن شاء الله كل عام وأنتم سؤال سعودين ده وضنك وحا كجر عذر كورونا فيروس الله ودون
dhibaato badan ku hayo sidoo lugayana hore ugu sheegnay dadka ha kala fogaadaan nin walba salli gurigiisa ha ka soo qaato afka sida hadda aniga baalka aan ku wata afka arkaysiin maskiska hala xirto dadka hadday awoodaan yani guryahooda inay ku tukadaan waxa dhibaataa ma ka taagno culimadan waa nala joogaan marka meel walba dadka ay joogaan oo u sheeganaa ciidul fitr waa berri saasna haloo dukado ummadda soomaaliyeedna ayaga ha iskaalmeeyaan masaakiinta ha loo gurmado ha lagu sadaqsto waa ciid maalin farxadeed waaye marka waxa waaye dadka ha issaamaxaan ha iscafiyaan كل عام وانتم بخير وهو ما صنتهي وزيك أوقات كريمة الصومالية شروط محمد وستوصل وجود المغليسين بين بريتو أي كان ما أنت كويت بالشوال محربة وزارة الرافين تنجد بدنا يكون شيخ علي سيارة رجل إن بريتي في أي ذا لكن كور محربة إن سلوا فيهن كوزارة الرافين ذلك اللي بحيي ونبغى نحتاجنا إلى عاو ka shaqeynaya sidii dadka loola xiriiri lahaa marka soo dhow ismaaciil cabdishakuur iyo bahda warinta qaranka wasiirka culimada sheekh cabdiraxiim iyo dhammaan inta uga baxsay waxaan leeyahay mar kale mubaarak waxaan leeyahay kulla caam wa antum bilkhayr wasaaradda warfaafinta iyadoo kaashanayso culimada iyo wasaaradda awqaafta waxay samaysay dadaal iyo juhdi ballaaran waxaa kale halkan xilliga afurka ka hor lagu diyaar garoobaa sidii muxuu ahaa dadka soomaaliyeed aan uga shaqeynayn islamarkaana aan ugu gudbin lahay macluumaad saxa oo la xiriira bilashada barakeysan ee Ramadaan ama haddii ay noqoto bisha Shawaal dhalashadeeda labada dhinacba hadda maanta waqti badan ayaa la diiyey si loo helo macluumaad sax oo ku aadan bilashada bisha barakeysan ama bisha Shawaal bisha barakeysan nafteeda marka waxaan aad ugu mahadcelinayaa howlwadeennada idaacadda iyo telefishinka iyo sidoo kale culimada Soomaaliyeed iyadoo sidoo kalena aan si gaar ugu mahadcelinayo Sheekh Cabdiraxiim oo aan ka doonay magaalada meel fog oo naga aqbalay inuu na soo raaco oo aan gaari ku soo una ballan qaadnay marka aan gaariga ku soo qaadno oo aan waajibka markuu guto kadibna inaan meeshii aan ka keenna ku celinayno sidoo kale dadweyne kala duwan ayaa nala soo xiriirayay oo noo sheegayay inay bishii la arkay laakiin mar walba waxaan u maraynay wasaaradda awqaafta wasiirka waa mahadsan yahay saacad walba ayaan dhigaynay galabta laga soo bilaabo ilaa saacadan aan joogno ilaa caawa aan dhahnay nin ayaan haynaa iyo dad kale oo gobol joogo wasiir bal aan isugu imaano wasiirkana waa naga aqbalay waana ku mahadsan yahay sidaas wadareedkana wada saaran aan u gudanaynay waxaan leeyahay tawfiiqana alla waafajiyo waxaan meeshaas aan ugu gudbaynaa in tafaraaruq iyo kala cidid iyo xaalado kale inuu wadanka u galo taas ayaana wasaaradda awqaafta iyo wasaaradda warfaafinta wasaaradaha dowladda insha Allah ta'ala بسم الله الرحمن الرحيم marka hore anagoo waxaan muslimiinta meel ka sii jooga guud ahaan gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed ayaan ugu hamaleeynaa ciida barakeysan ilaahay subxaanahu wa ta'ala bisha uu noo dhaliyay waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo saddex qodob aad u muhiim ah koobaad waxa waaye dadka muslimiinta ah waa inay sida hore dadka u sheegaan nusuusta iyo axkaamta sharciga ee iltizaamaan annaga fiqigeena yaal xusuusta kitaabka sunnada noo yaal haddii caawa macluumaadka aysan dhammaystirayn fiidka hore saacadda ma la helo iska dhaaf haddii biri la helo iyadoo la suman yahay sida nabiga xilligiisa sallallahu alayhi wasallam ay waajib tahay in la furo laanna dooqaaga iyo doorasho maliyo adiga waxaa ku xukumo nusuusta iyo macluumaadka ku xukumo iyo xaqiiqadu waxay tahay bishi waa dhalatay sadaqtiin kaligeena ma ahan Ethiopia waa laga soomay kilka shanaad dhowr toban qodob ka aragtay Kenya waa laga soomay Sheekh Umar iyo wata إعلان عمدي كين أو إعلانيا أفريقيا قلبات برتمها أفريقيا بدولة إعلانية مركز الحمد لله الصومالية دي ومدرسة كمية محيط كين على وضعك تاسمر وأنا قد ما سوى عيد بري هذه لا هذا اللي النبي صلى الله عليه وسلم حد عضي إن أفر ساعة مع لما يدل السومية هاي وصدق كان المثل اللي هاي إن ننسى هذا تيجي دولية رسول الله صار والاحتمال كيس الله عيد لدو كذا مركيبة مركز يقول السومية هاي بابا النبي غفر صلى الله عليه وسلم نظر الشيخ سيد عبد الرحيم وكلا تعدد فيكم
oo la joogaa weli maaragtay barmihii habeenka xataa lama gaarin weli soon lama gelin waa la furan yahay marka ciidaa la isu diyaaraya taas waa midda hore midda labaad ciid sida wasiirku u sheegay maadaama xaalad caafimaad lagu jiro ahaan oo dalka cudurka ka jiro juhdi badan runtii iyo wacyigelin iyo qalab iyo dowladda aad ugu mahadsan tahay madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo wasiirada dadka macalimiinta oo juhdi badan aad u geliyey waxaan rabnaa inaan u sheegno ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay laa yukallifu llaahu nafsan illaa wuscahaa wax ka adag nafta bini aadam ama ka qiimada ma jirto diinta ay ku xigtaan haddii nafta la badi karo iyo diinta la haystana waxaa weeye wax ka qiimo badan ma jiraan sidaa daraaddeed sida berri dadka iyagoo faraxsan inay ciidda dukadaan waa loo baahan yahay in dadaalkii ixtiyaadaadka ahaa la qaatana waa baahan yahay dadka masaajidda ku dukanaya waa ay kala fogaadaan waa inay mask face soo xirtaan face mask soo xirtaan waa inay markay soo baxaan adkaar ay ku soo baxaan أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم إن لله من زمان الربا آمنت بالله اعتصمت بالله توكلت عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قف قد أذكرتها استقعته هي الكرسي يقول والله معوذتيك وصاع خرسته لبلا كل ما ذلنا وإن لبحيها تاس قضب واي قضب كلبات وحاوبنا ندتك خرنا وشدنا صلاة فرق يبقى قبنا السنة اسكدافي صلاة عيد وسنة وقفك حتى دوسن هري نوسن دكان يعني وارد هو السنة مؤكدة لكن مد ما بايلو على ما يصير فرق كلامه marka dadka qaarkood haddii ay ku culusta in masaajid tagaan ama goobaha caamka waxa u bannaan inay guryahooda ku dukadaan salaada guriga ku dukan kartaa khudbada umbaadan jeedin karin khudba masaajidda iyo meelaha caamka laga akhriyaa laakiin salaadu waa kugu ansaxaysaa gurigaaga adiga ilmahaaga xaaskaaga inta adagu imaam noqdo ama wiil qofka markaas ugu qiraacdo ugu roon in inta kale ku daba safato rag ku xigsa dumarkuna u dambeeyaan gurigooda ay ku dukadaan xataa hal qof hadduu yahay sida loo dukado waa la wada yaqaanaa masjidka la baraya salaada ciidda takbiiratu ixraamka bacdi waxaa la takbiirsanaya 6 takbiirood 7 takbiirood isku yihiin tankilaatan oo ragcada koobaad ragcada labaadna 5 takbiirood waaye oo takbiirada intiqaalku aysan ku jirin tan lagu soo guurayo lagu soo kacayo 5 takbiirood 7 takbiirood waaye marka 7 takbiirood iyo 6 takbiirood ayaa maaragtay ayaa la akhrinayaa suuratul maaragtay acla iyo suuratul ghaashiya ama wixii quraan ما يسمى القرآن شرد ما لكن النبي أنت بدأ صلى الله عليه وسلم وهو أخرج لي سبح اسم ربك الأعلى سورة الغاشية ومن سورة اقترب الساعة وانشق القمر وحي لمدة تاس مركب وسكفر أنت لكن وحي لا يكوف آخر كرتا وحكى له مهمة إن آد لو جود ذاله احتياط كأمن جسد له هاي إن لا إلاليه ولا جمرمان وحسد وحم آد مهمة وبيع عام كهاي لو جود تمشي جري سورة بيسو تعليمات كأمن وعي قلنته حق عافمادكم ما سامحيس دولدنا go'aan ka soo saartay marka ayagu kuma hasan dadka meelaha tajammucaadka ah oo ilmaha iyo caruuraha ay ku ciyaar jireen ilaa cudurkan ilaahay naafsiinay hal xiro si xireen loo xiro yaan la isugu tagin maxay la caafimaadka wax walba ka muhiimsan qodob diintina maartay waa keenaysaa qodobka afraad oo muhiimka wuxuu yahay in la saamaxo oo qalbiga la sufuro oo qof kasta qofka muslima ciid waxa ciid loo yiri waa yawmul farah marka in la isku faraxsanaada la doonayaa marka ehelada dadka is haysta dadka isqaba kuwa isla dhashay kuwa diriska qof kasta wax ka dhaxeeyaan walaalayaal waa in la iscafiyaa sidoo kaleeto waxaan ugu baaqaynaa dadka walaalaheena oo siyaasiyiinta ah siyaasaddu waa iska yani isku qabsi badan tahay in ciidan barakaysan iyo farxadeeda in la iscafiyo oo maaragtay dhammaan dadka tartanka siyaasadeed ku jira iyaga laftoodu si walaaltinimo ah oo quwo ah oo isjacayl ah ilaa madaxda dalka ugu sareeya kuwa hadda jooga talada iyo kuwa hore ugu jiri jiray kulligood waxaan iyo kuwa maamul goboleedyada waxaan rabnaa inay noqoto mawsimkan ciidul fidrigu mawsim lagu wada walaaloobo la isu wada yimaado madaxda qaranka ee dalka ugu sareysa yani qalbiga loo xaaro laabta loo xaaro iyaguna say soo dhaweeyaan dadka walaalahood ah oo la isu wada yimaado Soomaaliya bar al-amaan hadda ku socotay hor loo sii socdo ciid mubaarak aan leena marka تبارك الله فيكم حسنت هاي شيخ علي وجيس شيخ عبد الرحيم يوسف او شيخ مقالة مقدشة كسو أركي هذا غير محلنا ومقدشة إنه استوديو إنه نوي هذا صورة شيء كم إذا هذا اللوجان قاعد أبو ما دعلنا شيخ علي وزيرك أصابنا نلجوجي يو أورنجو ما دعلنا عندي عاوة إرادي مقدشة عند شو راح يجي نسمع له سكوت